gudoomiyaasha kooxaha kabtanada dhammaantiina bahal saxaafadda waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib aniga magacayga waxaa la yidhaha Abukar Islow, xubin guddiga fulintaan ka mid ahay xiriirka kubadda cagta, gudoomiyaha xogeenka arrimaha horumarinta gobollada waa ka mid ahay. Johor waa markii labaad aan imaanayo. markii hore waxaan u imid furitaanka xafiiskan oo aan maalgeliyay xiriirka kubadda cagta. sidaa la socotaan xiriirka dhibaatooyin badan aan la soo kulmay, mashaakilaad badan waa jireen, laakiin sanadkan iyo sanadkii ka horreeyay waxaan ku talagalnay inaan horumarino gobollada. waxaa jirtay gobolka Jubbaland waa ka soo qabanay qalabka u qaybeen xafiis oo furnay, tartankii waa qabtay waa socdaan. sidoo kale koonfur galbeed tartankooda shalay soo gabagabay xafiiskooda oo furnay, laakiin kooxda ka qayb gashay waa u qalabeenay, horyaalkaas waa dhammaaday. maantana waxaan nimid Hirshabeelle magaalada madaxdiisa Jowhar. waxaan rabnaa bir inaan daafurno tartankaasna waxaa maalgelinaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. wuxuuna ku maalgelinayaa agabka u baxaya xiriirka bixinayo, qalabka du'aalahay, lacagta garsoorka, lacagta caafimaadka, boolboyska, kulligood waxaa bixinayo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. taasna waxaa loogu leeyahay in la horumariyo gobollada. waxaan rajaynaynaa qorshaha noogu jiro koobka qolada inta ka qaado horyaalkaas iyo qolada Jubbaland ka qaado iyo qolada ka qaado koonfur galbeed. haddana waxaan aadaynaa galmudug, ayagana waxaan rabnaa inaan soo furno aan soo sameyno iyo Jubbaland. kadibna waxaan rabnaa Puntland, waxaan rabnaa 6daas kooxood inaan isku geyno meel ka mid ah, ama Kismaayo ama Baydhabo ama Jowhar ama galmudug ama Puntland, mid ka mid ah aan isku geyno oo horyaaladaas aan qabano, horyaalka aan dhahno gobollada. rajadeen taas waaye. waxaan waa bilaab. shalay xiriirka waxyaabo qaarkood ma qaban runtii waaye, laakiin maanta wuxuu u soo jeedaa xoogaa inuu tilaabo qaado. laakiin tilaabada la qaadaya idinkaan la rabaa waxyaabihii inaad niyadiina khayr u sheegtaan, horumarku dadaashaan, kooxdan abaabushaan. anaga kooxda ma siinayna mogtahay, qalabkaana siinaynaa. waxaan rajaynaynaa sanad dambe horyaalka la qabanayna inaan sidaan oo kale u qalabayno. maamulka maamulka Hirshabeelle waxaa laga rabaa oo xiriirka laga rabaa sanad kasta inuu qabto horyaal oo xiriirka maamulayo, iyo koob ka mid ah oo loogu magacdarayo halyeelyada Hirshabeelle ama ciyaartooy ahaado ama madax ahaado in loogu magacdaro, kaas iyagas maamulayaan. anaga waxaan ka rabnaa sanadkii 2 tartan inay qabtaan, horyaalka xiriirka maamulayo iyo mid ayaga maamulayaan. xafiiskan waa furnay bishii, waxaan ku siinaa waxa oo magaciisii oo ah xafiiska konsol uu shaqeynayo. baaburka arkaysin bariyaan ku wareejinayna waxaa leh maamulka kubadda cagta Hirshabeelle. waxaan loogu shaqeynayaa xafiiska iyo garoonka. baaburkan oo dalada oo yimid bariya dowladda gaarjiin garoonka markaan furayno waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha kubadda cagta Hirshabeelle. maamul kasta saan soo sameynay. marka nimanka waxaa laga rabaa isboortiga magaca laga yeeshaa macnaha dhaqaale laga helo. magaalada waa u dhalateen, waa u joogtaan, inaad ka shaqaysaan horumarkeed. midda kale aad ka fikiraysaan waxaa waaye waa artay 2 sano ama 3 sano la soo qabtay oo malaynaa maamul goboleedka qaarkood xamara laga keenay ciyaartooydiina. waa dhibaato. wixii hadda ka dambeeyo idinka ismaamula in inta ka qabad maamulkii degmooyinka ku tirsan yahay ka soo aruursada, idinka aragtay inaad u madax bannaanaatiin oo horumarsiin. ninka qofka mogtaa waxbaa la siinaa, gacanta waa laga soo qaban, la soo joojinaa, laakiin inuu socdo inuu dhaqaaqayaa laga rabaa, idinkaan laga rabaa. xiriirka waxuu qaban karo waa qabanaa, wax laga hadlana ma jiro. runta ana magaca gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ku hadlaayo. aniga ciyaartooy waxaan ahaan jiray 5 goor soo bilaabay kooxda madbacadiyaan u soo dheelay, kadib madbacada kabtanka madbacada ahay ilaa 86 goor leelay. qarankana u soo ciyaaray, macnaha heer fiican waa ka soo gaaray. qofku waxa la rabaa inuu ana isma amaanayo, laakiin waxaan soo qabtay ana is og. idinkana waxaan la rabaa madaxda iyo kabtanada inay dadaalaan, kooxda ku dadaalaan, kooxda inay dhiirigeliyaan, kooxda abaabulaan. laakiin anaga waxaan inaga hagranayno runtii wallahi inay jirin. 2 sano noo hartay doorashadeena, 2 sano noo dhiman leh. waxaan rabnaa horumar inaan gaarsiino meelo ka mid ah oo gobolladaasna inaan dhigno rooga cooska. ballan ka qaadanaa markii kulli waa hal mar wada dhigi karno, qayb aan dhigaynaa. marqaabka ilaahay nasiibkiisa urto shiraan galaynaa oo soo raacno waa sameynaynaa. marka intaasaan ku talagalnay. haddana waxaan rabnaa kusoo wareejinaa wasiirka dhalinyarada isboortiga. falyatafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد السلام حريرك kubadda cagta Soomaaliyeed oo ugu horeeyo saaxiibkay Islaaw iyo mataqaana Jawane kaamiramanka mataqaana sawir qaadaha Umar juhdi iyo dadaal dheer kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo qoray maanta inaan imaano caasimadda Hirshabeelle waqti badan oo mataqaana iyo dadaal aan bixinay sidoo idin sheegay Islaaw mataqaana waxa meeshaan yaalo qalab isboorti oo loogu talagalay 6 kooxood oo Ilaahay calafka ugu daray qalabkaas mataqaana waxa loogu talagalay in horyaalkii ay taabagelinaysay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed inay ku ogaato ururka kubadda cagta Hirshabeelle si mataqaana koobkaas qiimaha badan oo horyaalka ay meesha ay ugu furaan ayagana mataqaana ay ka noqdaan marxaati si koobkii ama horyaalkii iyo mataqaana qalabka la keenay si ay ku bixiyaan annagana aan ka nahay goob joog hadii aan nahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaan aad uga mahad celinaa dadaalkii iyo mataqaana juhdigii iyo safarkii dheeraa oo waqtiga badnaa waxaan sameeynay dadaal kadib habeenada kamid ah gudoomiyaha xiriirka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo Islaaw iyo mataqaana gudoomiyaha ku-xigeenka waxaan isugu tagnay madaxweyne ku-xigeenka annagoo ka hadlayno garoonka roog dhigistiisa iyo arimahaas waxaan isla meel dhignay in mataqaana waqtiga ugu horeeyo ama ugu haboon in garoonka mataqaana rooga la dhigo waxna laga qabto hadii Ilaahay yiraahdo waana isla meel dhignay marka waxaan rabaa in kabtanada ama mataqaana ciyaartooyda nasiibaan leenahay maadaama maanta xiriirkii uu noo keenay qalab ciyaar ama isboorti oo uu dhan yahay hadii ay tahay jaakadihiisa ama kan ugu yar baasjeeriga uu yahay ama shanshadhoorka in qalabka uu noo dhan yahay maanta noola keeno nasiib badan aan leenahay waxaan leenahay ayagana mahad ha ka gaarto waa mahadsan yihiin waxaan rabaa mahad celintaas kadib in mataqaana birri haduu Ilaahay yiraahdo wixii faahfaahsan inuu guuleed idin sheegay waxa loo maleynaa 6 kooxood in isbartiyadu wada yimaadaan iyagoo qalabkooda ku labisan si mataqaana ay u maraan waxa la dhahaa ay u maraan si ay u maraan iskay sawir looga qaado meesha mataqaana yimaadaan waxa ka soo qayb galayo hadii joog kusimaha madaxweynaha Marwa Canab kulli mataqaana in biri mataqaana munaasabadaas aad u ballaaran aan ka soo wada qayb galno waxaan wax ku noqon karnaa is-adeec ismaqal hadii aan anaga ismaqalno ama is-adeecno wax badan aan tari karnaa ama gaari karnaa maanta xiriirka anaga dan ma naga laha mataqaana ma noo baahna waxay noo keeneen waxa waa caawino mataqaana in aan anaga wax noqono fadhigan ka kacno hore u socono hadii ayaga in dhahayaan fadhiga ka kac anaga waxaan laga rabaa inaan garab istaagno fadhiga aan ka kacno hore u socono waxa madaxweyne ku-xigeenka u ballan qaaday 2 kooxood baladweynan waa laga furaa 6 kooxood oo kale 2 kooxood marna inay ku ciyaarayaan Shabeellaha Dhexe oo koobka qaado finalka ama taqaana koobka horyaalka qaado marna inay ku ciyaarayaan Jowhar marna inay baladweynan ku ciyaarayaan oo diyaar lagu qaaday madaxweyne ku-xigeenka uu ballan qaaday taasna ina ogaatiin aan rabaa waa mahadsantihiin kun iyo 1 jeer waxaan leeyahay Ilaahay khayr ha siiyo dadka mataqaana saaxiibadeen xiriirka aad u mahadsan ayagana mar walbana waxaan leenahay sidaan oo kale noo garab taagnaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh